wafdi ka socday jaamacada Boosaaso oo indhaweydba ku sugnaa wadankaasi Uganda ayaa heshiis la saxeexday jaamacad kamid ah jaamacadaha ku yaala wadanka Uganda si ay uga hirgeliso jaamacada Boosaaso in lagu qaato darajada masterka. waftigaasi inta ay ku sugnaayeen wadankaasi Uganda waxay kulamo la yeesheen ardayda iyagu wax ka barata wadankaasi. wariyaheena Maxamed Yeman ayaa warbixintan Kampala nooga soo diray. maamulka jaamacada Bariga Afrika ee xarunteeda ugu weyn ay ku taalo xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso oo dhawaan booqasho ku yimid dalkan Uganda ayaa kulamo kala duwan la qaatay jaamacadaha dalkan qaarkood, gaar ahaan jaamacadda Islamic University in Uganda oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IU. maamulka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso oo martiqaad rasmi ah ka helay jaamacadda IU ayaa ka qayb galay xaflad qalin jabin ah oo ka dhacaysay jaamacadaasi. dhinaca kale maamulka jaamacadda Bariga Afrika ayaa TV-ga Somali Channel u sheegay in ay heshiis laba geesood ah ay la galeen maamulka jaamacadda IU ee dalkan Uganda. heshiiskaasi ayaa dhigaya in jaamacadda IU ay xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ka bilowdo waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda ee loo yaqaano masterta. talaabadan ayaa wax ka bedelaysa aqoonta gudaha dalka, waxaana sidoo kale ay gacan weyn ka geysanaysaa yareynta ardayda heerka labaad ee jaamacadda usoo doonanaya dalka dibaddiisa, iyadoona jaamacadda IU ay ka mid tahay jaamacadaha ugu tayada fiican isla markaana leh aqoonsi caalamiya. maamulka jaamacadda Bariga Afrika ayaa intii ay ku sugnaayeen gudaha dalkan Uganda waxa ay kulan la qaateen ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalkan, waxaana gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Dr. Cabdirasaaq Hiirad Maxamed uu kula dardaarmay ardayda jaamacadaha ku jirta in ay aqoonta ay baranayaan ay u bartaan aqoon ahaan isla markaana dalkooda ay wax ugu qabtaan. risaalada halkan u timaadeen ujeedada ay joogtaan yani ardayda diin waxbarasho u timaadeen ama waalidkiin haydin soo diro ama cid kale ha idin soo shaqeeyso ama jeebkiina كدبر waxbarashada aad halkan u joogtaan, laakiin inaad ogaataan risaalada aad xambaarsan tihiin oo inaad waxbarasho u joogtaan. risaaladaas waxay keenaysaa waxa weeye in aqoonta aad baranayso in aad u barato aqoon ahaan, yani waxaa la yidhaahdaa alcilmu lilcilmi. cilmigu aad baranaysaan inaad cilmi ahaan u barataan, yani knowledge ahaan inaad u barataan, in aqoontaasi in aad hadhow aadna ka faa'iidaysto ummadaadana aad u faa'iidayso. targetkiina ama ujeedada aad halkan u joogtaan inay shahaado noqon. adduunka waxaa la yidhaahdaa waxa ugu khasaaro badan uguna liitaa waxa weeye qofka waxa uu xambaarsan yahay macnaheeda aanan wadan, oo ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay kamathala alximaari yaxmilu asfaara, yani dameer kutubo lagu raray oo cilmi iyo aqoon xambaarsan laakiin maskaxdiisa ayay ku daadegsaneen oo waxba aanan ka warqabin. jaamacadda Bariga Afrika ayaa la aasaasay burburkii dalka kadib, waxaana intii ay jirtay ay horumar la taaban karo ka gaartay dhinacyo badan, iyadoona sanad walba soo saarta boqolaal arday oo intooda badan ay ka shaqeeyaan xarumaha dowladda Puntland iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay. waxaana jaamacadda ay xiriiro kala duwan la leedahay jaamacado kala duwan oo ku yaala dunida, waana markii ugu horeysay ee jaamacadda Bariga Afrika ee jaamacadaha Uganda xiriir iskaashi oo noocaasi oo kala ah la gasho. محمد يمني TV عالمي Somali Channel Kampala.